guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa ay u yeereen wasiirka maaliyadda si ay su'aalo uga weydiiyaan xaaladda dhaqaale ee wadanku ku sugan yahay. Xamse Dabaare ayaa Hargeysa inooga soo warramay. guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire iyo xubno kamid ah wasaaradda maaliyadda kulankan oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa marka uu soo dhamaaday waxa warfideenka la hadlay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada Somaliland Xildhibaan Cumar Saleebaan Axmed ayaa sheegay in sanadkan miisaaniyadda Somaliland hoos u dhacday sabab la xiriira xanuunka COVID-19 boqolkiiba waxaan badnayn taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan innaga quwaddeena iyo itaalkeena uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga haya iminka jiray coronavirus la yiraahdo xajkii oo istaagay xoolihii aan sanadkan la dirin dadkii inoo iman jiray touriska ahaa ee qurbajooga la odhan jiray oo lacag aad u fara badan soo gelin jiray waddanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee hadday Itoobiya tahay khudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimaha soo badan iyo kuwo kaloo badan oo isugu beerbeeray ay xibaysana ku jira oo isaguna ka mida programska sanadkan waxaa soo dhaway miisaaniyaddii odoreydka ahayd ee la odoreysay إلى بقى واحد هلي دوني وحصل بويسر تاجين مركا الحمد لله وعمل سلاه تنبه سنوبضنا arrimaanu ka hadlayna arrimahaas wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay in xanuunku hoos u dhac weyn uu ku yeelay dhaqaalaha Somaliland taasi oo uu sheegay in xanuunka COVID-19 hadii daawo loo helo uu dhaqaalaha Somaliland ku soo noqonayo halkiisii waxana uu yiri arrinkan xanuunkan coronavirus iyo wixii ka tirtamay xariijeen in arrinkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu fududeeyo oo xaaladiisa caadiga ku soo noqoto waqti bay nagu qaadanaysaa kulli dhowr sano nagu qaadanaysaa inay xaaladdu caadigeeda ku soo noqoto laakiin waxaan rajaynaynaa xasan hadii loo helo talaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu inuu soo noqdo oo reer uu soo laalaabanaya waqti markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayay dawladdu tallaabooyin badan qaaday tallaabooyinkaas oo saameyn ku yeeshay dhaqaalihi waxa kamid ahaa inaynu iska joojino maxaan yiraahdaa socodkii diyaaradaha iyo dadkii inoo iman jiray waxa kamid ah in iskuulada xidhnay in goobihii la isugu iman jiray hudheeladii inay saameyn ku yeelatay marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasadii dawladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaale xumo ayaa timi dhaqaale xumada markay timina waxay timi dabcan hoos u dhac ku yimid dakhligii dawladda wuxuu ka yimaadaa dhaqaaluhu ka yimaadaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda in wax iska bedelaan arrinkaas oo dib ugu noqono maxay raadayay heerkii dhaqaaluhu korayay insha Allah miisaaniyaduna inoo kortay Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.